lesson 2 بسم الله الرحمن الرحيم أرضي مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu qaadanaynaa maadadeenii ICT ga ahayd ama Information and Communication Technology aynu sida inta badan u qaadan jirnay maxaa la yiraahdaa caadada ahayd fasalka form 4ka markaasi maanta waxaynu qaadanaynaa sidii caadada inoo ahayd chapteradii inoo socday chapterkii saddexaad lessonkiisii labaad chapterka saddexaad ama chapterka saddexaad ee syllabuska inoogu qoran aynu maalinta hore soo bilownay waxa magaciisu ahaa waxa la yiraahdo internet using the internet saasu marka maalinta hore ama lessonka hore waxaynu soo qaadanay internetka waxa la yiraahdo waynu soo qeexnay information baynu soo sameynay markaynu soo information badan soo sameynay soo kale waxaynu soo qeexnay maalinta hore internet waxa la yiraahdo waxa loo isticmaalo world wide web waxay u taagan tahay waxa soo dhamaynu soo qaadanay maanta waxaynu ku qaadan doonaa chapterkeenan arkaysaan lesson 2 ga isla chapterkii saddexaad ee internetka lessonkiisii labaad lessonka labaad marka waxa uu ka hadlayaa sawirka idinka muuqata waxa la yiraahdo search engines waxa la yiraahdo browsers maxay yihiin using the browsers iyo search engines si loo isticmaalaa soo kale waxaan saaka arki doonaa oo nu qaadan doonaa xiisadan waxa la yiraahdo TLD extensions top level domains waxa la yiraahdo waxa soo dhamaynu ku arkaynaa marka inta meesha idinka muuqata waa sawirka meesha aad ka arkaysaan browserskaasi magacyada kale leeyihiin goorta la ikhtiraacay waxa soo dhan baa arki doonaa marka contentiska marka hadaynu qaadano cashirka ama lessonka maanta aynu ku qaadanayno kaynu ugu horeeyo waxa la yiraahdaa what is top level domain extensions TLD maxay u taagan tahay maxaa la yiraahdaa waan qeexi doonaa iyadoo qoran iyadoo moogtahay information badan leh definition aynu sameynay waxa soo dhan baa arki doontaa pointiga labaad waxaynu ku qaadan doonaa differentiate the different stages of top level domain extensions waxa aynu soo sheegnay in TLD baa la yiraahdaa waynu qaybin doonaa marka bal waxaynu u kala saari doonaa noocyo kala duwan oo arki doontaan cashirkeena ugu jirta soo kale waxaynu arki doonaa the role of web browser on the internet web browsersku maxay yihiin maxay qabtaan maxaa loo isticmaalaa waxa soo dhan baan isticmaali doonaa soo kale waxaan arki doonaa waxa la yiraahdo differentiate the web browser from the web waxaanu sameyn doonaa inagoo websiteska ama isticmaalayna ba waxaan u kala saari doonaa waxa la yiraahdo differentiation ma ku sameynaa waa kala qaybeenna markaas intaas waa inta cashirkeena ku qaadano meesha hadaba cashirkeena markaynu intaas oo dhan soo qeexno inuu qaadano ardayga waxa laga rabaa arday kasta inuu awoodi karo maxay waxa la yiraahdo inuu define gareyn karo ama explain uu ku sameyn karo waxa la yiraahdo what is top level domain extensions maxaa la yiraahdaa soo kale waxaan arki doonaa inuu kala qaybin karo tabiskii uu kala sameyn karo markaynu cashirka qaadano soo kale waxa laga rabaa arday kasta inuu sheegi karo ama uu qeexi karo explaining of web browser on the web web browserska inuu qeexi karo internetka marka la isticmaalayo si uu shaqeeyaan waxa loo isticmaalaa iyagu siteska layoutka isticmaalan muxuu yahay waxa soo dhammaarki doonaa differentiate web browser from the web intaas marka waa inta ardayga laga rabo hadaynu cashirkeena toos u galno pointiga inoogu horeeya sida contentiska bay inoogu qoneed waxa ku qonaa maxaa la yiraahdaa top level domain extensions oo meesha inoogu qoran oo la yiraahdo TLD macnihiisu muxuu yahay maxaa loo qaybiyaa maxaa loo markaan qeexayno maxay tahay waxaan leenahay top level domain waxa la yiraahdaa waa the suffix or extension tied to the websites waa qoraalka dheereeya ama xagga dambe ka raaca suffix maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan waxaanu maalinta hore soo qaadanay waxa la yiraahdo markaan soo qeexnay world wide web waxaan yiri waa collection of public websites tusaale aynu soo qaadanay waxaan yiri waxa la yiraahdo maxaa kamid ahaa google.com soo meena soo qaadan world wide web or collection of public websites kuwani markaynu qaadanayno tusaale ahaan intan markaynu qeexno tan baynu maalintii soo qeexnay oo waxaan yiri tan waxa la yiraahdaa world wide web collection of public websites tan maxay tahay waa inta waa shirkadda aynu isticmaalno inta badan wax ku searching garayno ama waa siteska aynu isticmaalno internetka inuu sahlay inaynu wax baari karno ama wax la soo degi karno maanta waxaan oranaa top level domain waxa la yiraahdaa TLD suffixka dheereeya qoraalkaas oo maxaa kamid tusaale ahaan .com .net .org .gof governments.edu oo educationkii inuu taagan kuwaas aynu leenahay marka kuwan waxa la yiraahdaa suffix or extension type to the websites ama waxaynu leenahay waa the last segment of the domain name which is located at the right of the
dot waxaan leenahay waa qoraalka inta badan dhaca xaguu dhacaa qaybta midigta ee information-kaad qoranayso oo maxaa ka mid ah dee dot iyo .net oo internetkii iyo org oo governments iyo organizationskii iyo dowladdii waxbarashadii waxaasoo dhan wuxuu yaalaa inta badan the last segments of the top right qaybta midigta xagga dambe ee dotka ka dambaysa markaa intaasi dhaca marka maanta kadib haddii lagu weydiiyo TLD maxaa la dhahaa ama top level domains waxaa la yidhaahdaa waxaa leedahay waa the suffix or extension tied to the websites waa qoraalada inta badan suffixka xagga dambe ka raacaya siteska aynu isticmaalanay ama waxaynu leenahay waa the last segments of the domain name which located to the right of the dot waa qoraallo inta badan lagu qoro oo dhaca marka qaybta midig ama xagga midigta lagaga qoro information-kaad qorayso ama siteska isticmaalayso kuwan maxay ku sahlayaan marka inaad gali karto ama isticmaali karto kuwa aynu soo qeexnay aynu nidhi world wide web ama collection of public websiteska inaad gali karto waa waxyaalaha ku sahlay oo maxaa ka mid tusaale ahaan dee inta badan kuwa aynu isticmaalo siteska ta ugu caansan waxaa la yidhaha .com tusaale ahaan waxaa aragtay facebooka markaad browserka ama computerka isticmaalayso dee waa adiga arkay facebook.com kaasa isticmaasha moogta kaasaynu garanayna soo kale maxaa isticmaali kartaa whatsapp.com taasaynu odhan karnaa marka this one company leenahay markaa waxaa la yidhaha TLD ama top level domains marka intaa haddaynu uga gudubno definition-kayga iyo waxa la yidhaahdo waxaynu samayn doonaa differentiation baynu ku samaynaa marka waynu qayqaybinaa markaynu qayqaybino waxaan leenahay tabs baynu u samayn doonaa noocyo kala duwan oo intani haddaynu soo nidhi kuwan oo dhan waxa la yidhaha top level domains dee waynu kala saari doonaa marka mid kasta magac gooniya inuu bixinaa markaynu differentiate ku samaynno ama aynu different tabs sheegayna qaybaha kala duwan TLD extensionska ama top level domainska waxaan leenahay waxay leeyihiin qaybo kala duwan inta badan qaybtooda koowaad waxa la yidhaahdaa generic top level domains ama general top level domain oo loo soo gaabsado GTLDS saasa general top level domains kuwan maxaa ka mid ah waata meesha hore aynu ugu qoran marka waxa la yidhi these are the most common domain name which can be registered by anyone waxaa leenahay kuwani waxay yihiin kuwa inta badan qof kasta uu isticmaalo la isticmaalo maxaa ka mid ah tusaale ahaan example baa laynoo soo qoray example-keena koowaad waxaa ka mid ah .com tan inta badan .com maxay u taagan tahay marka .com represented the word of commercial inta badan waxaa loo isticmaalaa ganacsiga oo siteskanan isticmaalna dee waxaa loo furtay dee ganacsi dad baa iska leh lacag bay ka sameeyaan marka dad baa lacag ka sameeya youtube.com facebook.com waxa siteska aynu isticmaalno social media inta badan markaynu arkayno iyaga waxaan leenahay waxaa loo isticmaalaa in qofku lacag ka sameeyo marka .com markaanu leenahay the word .com waxay u taagan tahay represent a commercial ganacsi ahaan bay u taagan tahay and it is the most widely used and highly influential domain extension in the website inta badanna waata inta badan mareegta ugu dheer ee lagu isticmaalka badan oo wax kasta la socotaa social media siteski kale google.com gmail.com facebook.com whatsapp.com waxaasoo dhan bay markaa raacaysaa marka taasaynu leenahay for example labaad waxaynu soo qaadanaa waxa la yidhaha .net ku represent the word of network bay u taagan tahay marka and it is the most common uses of the internet service inta badanna waata lagu isticmaalka badan yahay waxa isticmaala marka yaa isticmaala web hosting companies maxaa ka mid ah dee kambaniyada inta badan informationada soo qora oo website-yada aynu isticmaalno maxay isticmaalayaan tusaale ahaan dee kii caadiga garanaysaan tusaale ahaan laacib.net waa aragteen maxaa ku qoran marka inta badan dee waa page uu qof iska furtay laakiin inta badan maxaa loo isticmaalaa dee network sababtuna maxay tahay inta badan the most common uses by the internet services provide by hosting companies kuwaasa marka iyagu isticmaalaya haddii wax laga weydiiyo .net maxay u taagan tahay iyadna waxaa leedahay represent network saddexaad waxaynu leenahay org marka weli waxaynu ku jirnaa qaybtii koowaad ahaa generic top level domains ama general top level domains marka org inta badan yaa isticmaala organizationska kuwa la yidhaahdo non profit organization ama NGO non governmental organizationska oo waxaynu leenahay the word .org maxay u taagan tahay the organization oo tusaale ahaan meel organization ama maxaa la kuwa non profit organizationska tusaale ahaan dee mid loo kala tusaale waxaa ka mid ah kalo.org taa haddaynu information ama warbixin u dirayno ama aad u dirayso CV maxaa samaynaysaa dee inta badan halkaynu markii hore .com raacin lahayn hadda siteka iyaga waxaan raacaynaa maxay .org wolfshan taa ka mid ah UN taa ka mid ah waxaasoo dhan markaynu information u dirayno oo waxaan isticmaalanaa marka this one marka iyaga waxaan leenahay represent the word of organization inta badanna waxa isticmaala qolooyinka la yidhaha non profit organizationska ama non governmental organizationska NGO ta u dambaysa general top level domainska waxay u taagan tahay edu waa site-keenii ama waa qaybta inagoo inta badan isticmaalna uses educational institutions wasaaradda waxbarashada haddii aad tusaale ahaan usoo diraysa fariin dee page-kooga maxaa ku qoran haddaa aragteen waxaa ku qoran
edu waa halkay noogu qoran tan maxay tahay marka maxay u taagan tahay represent the word of education waxbarashadii bay u taagan tahay marka education waxbarashadii bay u taagan tahay inta badanna waxaynu isticmaalnaa markaynu isticmaalno Puntland Ministry of Education.edu halkaynu oran lahayn .com waxaynu isticmaalnaa ama .net ama halkaynu oran lahayn waxaynu u diraynaa markaynu isticmaalnaa edu waxa la yiraahdo marka government-iskina oo kuwan iyagana waxay isticmaalaan inta badan .go GOF ayana la yiraahdaa markaad raacinayso inta badan halkii .com iyo .net ku baad ku bedelaysaa .gof marka waxay u taagan tahay government entities and agencies waxa isticmaala dawladahan caadiga oo shaqeynaya ee moogta wasaaradahan iyo waxaan markay information iyo warbixin isku darayaan waxay isticmaalayaan page kaasi ama waxay raacinayaan maxaa la yiraahdaa TLD top level domains ka la yiraahdo government qaybtaasi marka hadday ahayd kuwa la yiraahdo general top level domains ama general top level domains ka oo yihiin inta badan kuwa lagu isticmaalka badan yahay kuwa waxa jira la yiraahdo country code top level domain oo CCTLD maxay tahay marka CCTLD waa country code top level domains kuwan yaa isticmaala inta badan wadamada isticmaala oo sida u isticmaalaan waxay ku qoran tahay baasaboorada hadii jeer aragteen ama informationada iyo warbixinada immigrationsku markay fariimo isku dirayaan wadiga arkay inta badan waxay isticmaalayaan siteska halkii markii hore .net iyo .org iyo .com iyo .edu ay isticmaalayeen hadda waxaan isticmaalanaa wax la yiraahdo general top level domains CCTLD maxay tahay marka kuwani maxay yihiin government organizations waxay isticmaalaan dawladaha tusaale ahaan maxaa kamid ah marka hore .com inta maynu isticmaalanay hadda waxaynu isticmaalnaa wax la yiraahdo tusaale ahaan .uk .usa .somalia oo soya .id oo india ah kuwaasi marka information kibinu bedelna markii hore hadaynu .com .net tiibanu bedelna marka yaa isticmaalaya marka agencies-ka ama governments-ka marka wada shaqeynayaan inta badan waa taa meesha ugu taalana kan waxa weeye marka internal top level domains yaa isticmaalaya internals wadanka dhexdiisa Soomaaliya qofku haday fariin tusaale ahaan Puntland ay dawladda federaalka u dirayso waraaq inta badan waxay isticmaalaysaa siteska ama waxay isticmaalaysaa pages-ka ay leeyihiin .somalia waa taa meesha ugu qoran United Kingdom-iski for Somalia for United States waxa soo dhan marka kuwan la yiraahdo CCTLD country code top level domains-ka inta badan iyagana waxa isticmaala dawladaha ayaa isticmaala marka iyagu waa internal wadamada inta gudaha dhexdiisa wadanka gudihiisa baa loo isticmaala qaybtaas haday tahay marka waxa loo qaybiyo waxa la yiraahdo TLD ama extensions-ka aynu isticmaalayna maanta hadaynu inta kaga nimaadna labada aynu soo qaybinay kuwa kale jiro badan oo la yiraahdo infrastructures oo yaa isticmaala inta badan waa iyo kuwa kale waxa jira internationaliska oo calaamadihii caadiga kelmadihii iyo marka inta badan kuwa u caansan waa labada kuwa la yiraahdo CCTLD iyo kuwa aynu soo nidhi maxaa la yiraahdo general top level domains waxaanu eegnaa marka the role of web browser on the web marka web browser horta maxaa la yiraahdaa inuu qeexnaado roolkiisa intaanaan gaarin isaga maxaa la yiraahdaa waxaan leenahay software application inta badan waxa computerka ku jira inuu isticmaalano applicationadan internetka inoo sahlaya waxa soo dhan iyagu waa software marka waxa leenahay consider a software application that allows people to access web browsers waa shayo software applications computerka ku dhex jira oo qofku isticmaalo soo isticmaala sida information oo internetka uga heli karo ama internetka uu ku xirmi karo marka iyagoo qeexan iyo web browsers waxay yihiin marka waa arkayna The information that may be processed can be in the form of the text contents on the web page. Wuxuu noqonayaa marka warbixintaasi markaad gasho ka soo qaadanayso internetku de qoraal bay noqon kartaa laba maxay noqon kartaa images sawir bay noqon kartaa saddex muxuu noqon karaa video buu noqonayaa iyo kuwa kale oo badan marka the most popular web browser currently in use waxa la yiraahdaa currently in use aynu isticmaalno inta badan kuwa ugu caansan web browsers waxa kamid ah Internet Explorer Google Chrome ki baa kamid ah Mozilla Firefox ki Safari ki Opera iyo kuwa kale oo badan baa kamid marka intaasi hadii inta badan kuwa ugu caansan marka ka ugu horeeya waxaynu qaadanaa waxa la yiraahdaa Internet Explorer muxuu yahay iyadu waa ta ugu caansan inta badan la isticmaalo hada aragteen calaamadeedu waa inta badan calaamada noocaas dhex marsan tahay marka Internet Explorer waa meesha ugu sawiran the first component of the Windows used in 1995 It is generally known as the Microsoft Internet Explorer marka inta badan iyadu waa ta ugu caansan oo computerka marka soo iibsato markuu cusub yahay de browserska kale kugu ma jiraan laakiin ta originalka inta badan la socota waa taas la yiraahdo Internet Explorer calaamadiisuna ay tahay marka iyada meesha kugu qoran this one marka iyada laba magac baa loo soo qaadan karaa MIMSIE ama waxa la yiraahdo IE oo la yiraahdo Microsoft Internet Explorer ama Internet Explorer marka inta sanadadaasi badan ay soo jirtay waqtiga la aasaasay ilaa hadda
maxaa la sameeyey dee marka it has been updated in different versions waxay leedahay markaa versiono kala duwan macnaha sanadba sanad ka dambeeya mid cusub oo kii ka duwan baa la soo bixiya haddii taasi ay tahay internet explorer ka labaad waxaynu soo qaadanaynaa web browserskaynu isticmaalna waxa la yidhaahda web google chrome oo adinka arkaya calaamadiisu markaa isaga guduud iyo jaalle iyo yellow iyo waxaasoo dhan bay isugu jirtaa inta badanna waa inta badan caanka ah bulshada inta badan ay isticmaasho google chrome-ku waa fireware browser developed by Google shirkadaas markaa soo develop garayso shirkada Google la yiraahdo using WebKit layout ku isticmaalo WebKit marka layout muxuu yahay layout ku inta badan waa WebKit waa shay'adan isticmaalaya oo maxaa kamid ah tusaale ahaan markan browserska isticmaalayno waxa aragtay markaad browserkii kiciseed gasho http information ka markuu ku soo baxo internet explorer ka isticmaalayso iyo markaad isticmaalayso Google Chrome-ka de maxaa ku soo baxay site information kala duwan marka warbixintan iyo numberskan meesha ku qoran kala duwan waxay ku sahlayaan waxa la yiraahdo waa kala duwanaanshaha waxa la yiraahdo layout engine waxa marka Google Chrome-ku isagu wuxuu isticmaalaa WebKit waxa la ikhtiraacay ama la soo saaray waqtiga in 2008 buu marka effective noqday at that time marka shirkadda samaysan isaga waxa la yiraahdaa browser Google Chrome baa marka samaysay waxa la yiraahdaa magaciisana Google Chrome shirkadda Google baa marka inta badan ikhtiraacdo samaysay this one marka isagu waa fireware waa soo downloadsan kartaa waa free computerku marka inta badan internetku ku jira idii adoo isticmaal internet explorer-kii originalka ahaa baa soo downloadsanaysaa hakiiqiga saddexaad waxa la yiraahdaa Mozilla Firefox waa inta badan waa the fastest internet browser waa ka ugu orodka dheereeya marka Google browserka laga yimaado Opera oo ku soo dhow laakiin Mozilla Firefox-ku inta badan isagu waa ka ugu fiican sababtu muxuu noqday speed-ku ku shaqeeyo baa moogtay aad u sareeya marka free and open source web browser waa la soo day kartaa oo soo downloadsan kartaa internetku ku jira developed by Microsoft Windows yaa markaa sameeyay ama shirkadda Microsoft Windows la yiraahdo Bill Gates uu leeyahay shirkadaas markaa ikhtiraacday oo sameysay baalkan marka Mozilla Firefox waxay leedahay waa the fastest internet browser waa ka ugu dheereeya ama inta badan hada isaga isticmaasho xawaaruhu ku shaqeeya aad u sareeya marka waa ka ugu dheereeya and compare the internet explorer markaynu baba dhigno kii horeeyay soo qaadanay internet explorer-ki waxaan leenahay waxa uu yahay waa Mozilla Firefox-ku waa the fastest internet browser waa browser-ka ugu dheereeya ama inta badan lagu isticmaalka baday Safari inta badan abiska ku aragteen mobile iPhone-isku inta badan ku jira isaga shirkadda Apple baa samaysay Apple-na ayaa iska lahaa ninkii la oran jiray Steve Jobs oo ahaa maxay ninkii ugu horeeyay ikhtiraacay ninkaas sameeyay marka ninkii ugu horeeyay sameeya wixii la oran jiray personal computer ama computerkii ugu horeeyay sameeya personal computerkii marka Apple Safari-ga hadda aragto wuxuu ka mid yahay web browser-iska kuwa la yiraahdo isaga waxa soo saartay ama develop gareysay shirkadda la yiraahdo Apple soo kale waxaan leenahay inta badanna isaga wuxuu ku shaqeeyaa Windows ayuu isticmaalaya Windows-kaasi marka computerkaaga effective iyo Windows ku shaqeynayo baa la soo degi kartaa isaga waa free waa soo downloadsan kartaa inta badan laakiin waxa isticmaala mobilada caadiga inta badan iPhone-isku inta badan ku jira Safari waa soo wata shirkadda Apple baa marka ikhtiraacay daadis waa marka inta badan looga helaa inaad ka heli karto maxaa la mobilada hadii Google-ka weydiiso ama internet-kana waad ka heli kartaa marka waa soo downloadsanaysaa marka this one kan marka isagu popular ma aha inta badan lama isticmaalo laakiin inta badan ka ugu muhiimsan ee aragteen waa labadaas sare meesha idin ku qoran waxa la yiraahdaa Firefox-ka Chrome-ka iyo Mozilla Firefox ka u dambeeya inuu qaadano web browser-iskii ama inuu maanta dhigayno waxa la yiraahdaa Opera muxuu yahay the fast and secure browser developed by the Opera software shirkadda Opera software baa samaysay marka kan la yiraahdo Opera browser inta badanna oo isagna fast waa mid dheereeyo inta badan sababta loo isticmaalo isaga iyo Mozilla Firefox-ka inta badan isku xiga marka waxa leenahay which is only a few milliseconds slower than the fastest internet browser we tested Mozilla Firefox wax yar ama site in yar buu ka yar yahay wax yar buu ka yar yahay marka loo eego maxaa la yiraahdaa Mozilla Firefox-ki macnaha speed-ka uu ku shaqeynay marka kani inta badan isagu waxa uu leeyahay waxa la yiraahdaa shortcuts oo inta badan oo dadku maxay u isticmaalaan Opera-hu site-ka inta badan isticmaasho hadii social media Facebook ay isticmaasho WhatsApp shaygi marka isticmaalayso muxuu ku sameeyaa shortcut buu leeyahay history buu leeyahay meesha uu ku soo dhigaya at that time marka si quickly ayaad marka sameyn kartaa adigoo dhag ku siinaya ama click siinaya baad marka si degdeg u furan kartaa marka sababta inta badan loo isticmaalaana waa that's why inta badan waxyaalaha loo isticmaalo waxa kamid ah waa secure browser waa amaan buu leeyahay marka hadii tusaalahaan information iyo warbixin ay kugu jiraan oo isaga inta badan isticmaasho information-kaaga marka lama jabsan karo marka casirkii maanta aynu qaadanay ee lesson 2 halkaas marka aynu weegay qaybta ugu dambaysa waxa ku qoran questionsku maxay yihiin su'aalihii marka casirkan marka casirkii marka soo faahantay soo dhigatay waxa laga rabaa ardayda casirka in su'aalahan meesha ku qoran ay ka soo jawaabto su'aalahan maxay yihiin
top level domain wixii maanta oo aynu soo qeexnay TLD la oranayay TLD extensionsku maxay yihiin withstand.com and .net maxay u taagan tahay marka .com iyo .net differentiate the different types of top level domain TLD extensions waa kala qaybinaysa adoo sheegaya faraqa u dhaxeeya ama types u sameynaya maxaa la yiraahdaa top level domains question ka afraad waxa uu yahay what is internet browser maxaa la yiraahdaa and what is a browser provides to the user browserska inuu soo qeexanayno soo niri waa software application maxay userka siiya ama maxaa inta badan dadku ay u isticmaalaan ama maxay sahlaan differentiate internet explorer and google chrome waxa sameyn doontaa inaad kala qaybiso waxa la yiraahdo internet explorer iyo google chrome oo kamid ahaa browserski bal sheeg information u samee oo qeex marka waxay kala yihiin and what is the role of top web browser on the web rolka ama muhiimada ama functionska iyo shaqooyinka qabtaan maxay yihiin tasideedad using internet explorer and opera which is fast and secure isbarbar dhig labada midkee fast ah speedku ku shaqeynaya secure na questionka sagaalaad waxa uu yahay what is country code top level domain of Somalia country code top level domainski koon soo oranay CCTLD Somalia inta badan maxaa loo isticmaalaa maxay soo taagantahay questionka ugu dambeeya ardayda waxa lagu casharkii maanta oo dhan soo akhriinay maxaa ka fahantay halkaas aynu ku deynaa marka chapter 3 lesson 2 waa mahadsantiin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.